السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا مركلي جنالك عبدي جنال وأنا كسر قد بنو حيالها إسلانها وحي أنفعيان أمد الصوماليات مالمها وانو كلا مقنان ميشان سببا أنا قاسة أو أينان مشغول بدن وشري أي أهيد markii kuuka ay dambeysay waxaan joogay dalka Rwanda halkaas oo aan kaga soo gudbiyay video kala duwan oo aan uga waramayay dalka Rwanda noloshiisa iyo macnaha guud ahaan wadanku siduu yahay. Videoga ugu dambeeyo aan ka soo gudbiyay dalka Rwanda wuxuu ahaa video aan ku wareysanayo dhalinyarada halkaas wax ka barata iyo ganacsatada iyo odayaasha anigoo tagay maqaaxidii Soomaalidu ay meeshaas ku lahayd kadibna waraysiyo kala duwan halka kula yeeshay. maanta waxaan rabaa inaan idin sheego 5 waxyaalood aan isleeyahay way ku fiican tahay Rwanda. waxaan uga fiican tahay wadamo badan oo aan tagay sida wadanka Masar, Turkiga, Kenya iyo wadamo kale oo Soomaalidu ay degto iyo macnaha sida Morocco kale. videoyadaas wadamada aan ku sheegay haddii rabtay inaad daawatid Morocco, Masar, Kenya dhammaantood iyo dalkan Rwanda waxaad ka daawan kartaa janaalkan Cabdi dib ayaad u raacaysaa videoyada kadibna waad arki doontaa. haddaba maanta waxaan rabaa inaan idin sheego 5 waxyaalood aan isleeyahay Rwanda wadamadaas way kaga fiican tahay. 5 waxyaalood midda koobaad waxa weeye waa amniga. waxaan isleeyahay amniga wadankaas ka jira waxaan la barbardhigi karaa Imaaraadka, Dubai beriga hore intaan Iran tu weerarin Dubai sidii ahaan jirtay oo kale ba amnigu yahay. wadankaas kama walwalaysid telefoonkaaga ama laga dafaa, kama walwalaysid ama qofku feera, kama walwalaysid ama qofku xadaa. markii ugu dambeysay waxaan seexday hotel Airbnb hotel maaha gurigaasi dusha laga qufulay ninka maca qamra ka soo ureysay markuu albaabka iga furay qamraan dareema inuu cabsan yahay laakiin saasoo ay tahay ma dareemeyn wax walwala sababtoo waxaan ogaa amniga wadanka ka jira iyo wax walba in lala socdo. wadanka Rwanda dhaqankiisu waa dhaqanka sida European-ka kale. wax walba waa way recordsan yihiin, wax walba way duuban yihiin, wax walba waa lala socdaa. soo amnigiisa waa number 1. number 2 waxa weeye dhinaca waxbarashada, walibana waxbarashada sare jaamacadda. waxaan ku arkay inuu yahay wadan waxbarashadiisu ay fiican tahay, raqiisna tahay. walibana jaamacadaha inay fiican tahayna waxaan ku ogaaday wadamada Afrika waxbarashada ugu fiican waxa waaye wadanka Masar. waxaan ku arkay dad Masriyiina videoyadeeda haddaad dib u daawataan, anigana waxaan rajaynayaa halkan inaan soo dhigo. haddaad dib u daawataan waxaad arki doontaan nin Masri ah oo meeshaas ka barta jaamacad. haddii Masar looga imaanayo waxbarasho dalka waxay ku dareensiinaysaa in dalkaas waxbarasho fiican ay ka jirto. waa midda labaad, waa dhinaca waxbarashada. midda saddexaad waxa weeye nadaafadda. waa wadan inaad joogto wadamada Scandinavian-ka baad moodaysaa say nadiif u yihiin, ama Asia sida wadamada magaalooyinka Kuala Lumpur iyo Singapore baad moodaysaa inaad joogto. walibana Singapore oo kale aad moodaysaa sababtoo Singapore lama ogola xanjada maca dhulka in lagu tuuro. wadanka Rwanda aad buu nadiif u yahay, meel walba waa clean, meel walba waa cagaar, dhir baa ku beeran. maasha Allah ma dareemaysid inaad Afrika joogto. videoyadeedana waad ka daawan kartaan haddaad daawataan. saacado badan baan wadada ku soconayaa, mana arkaysid qashin iyo waxaas. waa 3. tan afaraad waxa weeyaan oo wadanku aan isleeyahay aad iyo aad buu ugu fiican yahay. it is very easy to settle in wadanka. inaad degto, inaad ka shaqaysato, inaad ganacsi ka furato aad iyo aad bay u fududahay. maanta aad imaanaysaa, berri hawshaada waa ku bilaabanaysaa. kaliya waa bureaucratic yani waxaad u baahan tahay inaad dariiq marto, warqada saxiixdo, 150 warqadood baad saxiixaysaa oo kala duwan. laakiin warqadahaasi
waa bene bene lacag badan ma ah macnaha nus dollar $1 $2 $3 sida candy oo kale ma ahan yacni khiyaano iyo tuuge iyo bahalki iyo ii sheeg corruption kama jiro wax walba waxaa lagu marinayaa dariiqii saxda ahaa kadib dariiqii saxda ahaa markaad martid waraaqahaaga waa helaysaa so waxa afraad oo aan isleeyahay way ku fiican tahay waxa weeyaan fududaanta inaad degto waddamo badan markaad tagto rabto inaad ka ganacsato ama wax ka barato ama ma garanaysaa ganacsi aad ka furato waxaa adag dariiqa loo maro sidii aad u degi lahayd hadda dalka Masar oo kale waxay kugu qaadanaysaa maanta dhan saasaa iskaga daba meeraysanaysaa inaad waraaqihii deegaanka heshid ayadoo aad helayso ugu dambeyntii laakiin horta marka hore waa inaad iskuul iska register garaysaa kadib meel aad tagtaa iskuulka waxaa laga yaabaa islaantuba ama ninka maalintaas jooga inaysan muudkiisu fiicnayn oo ma garanaysaa ay maalintaas ka xun tahay waa lagu celinayaa dadka Soomaalida waa taqaanaa weliba dadka dibadaha ka yimid way isxanaajinayaan waxay leeyihiin maxaa la ii dhibayaa maxaa markay qaylqaylayaan hoos baaba la dhiganayaa warqaddii marka halkan waxaa kama jirto wuxuudu waa straight forward oo ma garanaysaa laalaabad ma jirto dariiqaasaad maraysaa kadibna waad gudbaysaa midda shanaad oo ugu dambayso aan isleeyahay waddankaas Rwanda wuu kaga fiican yahay waddamada kale oo ma garanaysaa macnaha ay Soomaalida u guurto sida dalka Masar Kenya iyo waddamada kale oo ay degaan sida Malaysia oo kale waxa weeyaan waa waddan afrikaannimadu macnaha annagu ka fiirinaynaa horta dadka shacabka waxba ma oga oo dadka shacabka waa dad ma garanaysaa humble ah aamusan maanta dhan aan haddaad xagga u socotay haddaad xagga u socotoba aan ku fiirinayn andan kaa lahayn kaa sii jeesanaya ma garanaysaa ma ahan dad indha fiiqfiiqan ma ahan so waxay dareenkooda ma dareemi kartid iyo ayagu siday kuu arkaan sababta waxba kuugu darsan maayaanba laakiin siyaasadda dalka waddanka ka jirta oo loogaga dhaqmo khaasatan ninkan hadda waddanka haysta oo la yidhaahdo Paul Kagame waa ban african macnaha waa nin afrikaannimada aaminsan waa nin aaminsan in ma garanaysaa dadka afrikaanka ah ay midoobaan isku socdaan wada ganacsadaan wada degaan ma garanaysaa isku baasaboor iyo isku lacag ay yeeshaan asagoo taa aaminsan haddana Rwanda waxay ka mid tahay East Africa community waxa la yidhaah oo ay Soomaaliyana ay ka mid tahay marka hadda wuxuu ii sheegaya wiil haddaa waraysiga daawataan Soomaalidii in loo fududeeyey waraaqihii waxbarashada oo lacagtii laga yareeyey maadaama East African ay yihiin marka waxaan ka soo wataa haddii aad tahay East African ama African macnaha waddanka Kenya oo kale waa lagu soo dhaweynayaa laakiin still Soomaali baa tahay warrior waa Soomaali waddankeena they are taking over kida still hostility baa dareemaysaa dadka qaar dadka oo dhan ma hostility inay jirto yacni laakiin halkani ma dareemaysid hostility waddanka waa timid sharci baa ku timid cabsi kale ma jirto cabsi kale oo ma garanaysaa iyo Soomaali baa tahay iyo kidaa baa tahay mabana ku yaqaanaan horta qofka taariikhdaada markuu yaqaano marka wax isku qabsataan
markii ay wax idin dhex maraan markaasoo kaluu ama colaad ku hayaa ama wanaag ku hayaa ama bahalkii dadaan xiriir wada lahayn ma aha soo markaad halkaa tagtid macnaha waxaad dareemaysaa xasilooni deganaansho cid ku faquuqaysa inaysan jirin oo kale soo shantaa waxyaalood ayaan isleeyahay dalka Rwanda wuu ku fiican yahay dadkii wax iga soo weydiinayay waxaan ku xijin doonaa 5 waxyaalood aan isleeyahay dalka Rwanda wuu ku xun yahay kadibna waxaan faahfaahin doonaa taladayda ugu dambaysa oo ah inaan Soomaalida kula talinaya inay wadanka degaan iyo in kale tan iyo intaan dib dambe u kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa ammaano alle iyo codsanayaa in aad videogan hadduu ku soo gaaro ama aad daawatay ama halkan aad soo gaarto hadday kula tahay inuu istaahilo inaad like siiso ama share tiraahdo ama subscribe tiraahdo inaad samayso waa mahadsantahay salaamu calaykum